sawirada maalintii uu degay iyo taas oo soo bixiseen mooyee marka warka qaar ayaa sheegay in xaalad caafimaad arrintaasi ay la xidhiidhay loo laayay ta madaxweynaha baltaa waxaad ka oranayso talabaad miidiyaha iskuma wacdin baryahan mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo caafimaad qaba ayuu halkan ka duulay sidaan maalintii hore idin sheegayna martiqaad rasmi ah oo ka helay dhigiisa dawladda Imaaraadka ku tagay madaxweynuhu wuxuu muddadii 4 maalmood halka joogay uu ku mashquulsanaa oo ka shaqeynayay hawlihii qaranka tegin inuu daaraha Imaaraadka isku soo sawiro iyo inuu muuqaal iska soo duubo qarankan horumarintiisa masiirkiisa iyo waajibaadka qaranka saaran ayuu u anbabaxay waajibaadkiisa shaqoono gudanayay warbaahinta caalamkuna way qortay arinta labaad ee miidiyaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan hubka iyo madaafiicda qarankan warkiisana laliya qarankan qiimihiisa soo saara aniguna mas'uuliyiinta qarankan kamid ah wax shakhsi oo naga dhaxeeya mise waxa la idinku qasbay tacaalamka hadda gudbisaan maadaama uu wax sawira xagga Soomaaliland laga arag idigana aad la socotay farsamaqaani sawirada shaqada qaranka ee safarka madaxweynuhu ma aha sawiraan soo diro iyo sawir la soo galay oo wixii madaxweynuhu ka hadlay oo waxaan kula hortaagan aan ku sheegayo madaxweynaha meeqaamkii lagu soo dhaweeyay maantana lagu soo sagootiyay meelihii uu tagay sidii uu dalka uga dhoofay sidii ku soo noqday diyaaradda khaaska ay qaaday markii la soo celisay waxaba uu la wadaagnay xiriirka Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtuna ma aha mid gabashale ma aha mid sawir yar inoo kor u qaadayo sawir laga weyneeyay madaxweynuhu shaqadii uu tagay si fiican bay ugu soo qabsoontay magacaygu waa Siciid Jaawac ka socda telefishinka Cable hore Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland waxay uga wada hadleen arrimo ku saabsan baasaboorka Soomaaliland in la ogolaado wafdiga madaxweynaha ayaa kamid ahayd arrimahaasi ma kala hadleen mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta sidaan imika warbixinteedii aan ku sheegay way ku dhaaftaan u maleynaya waxa kamid ah waxyaabaha laga wada hadlay isu socodka labada shacbi oo waxay isugu soconayaan ay tahay baasaboorka Soomaaliland iyo isu furka suuqa ganacsiga labada dal baasaboor marka dal aan la aqoonsanayn dal kala qaadanayo waad ogtahay culayska ay leedahay waxay u baahan tahay baasaboor aan la koobiyeyn karin oo la foojar gareyn karin oo baasaboora oo elektrooniga oo wanaagsan oo lagu kalsoonaan kara la helo waxay qaadanaysaa in loo sameeyo assessment loo sameeyo in xaqar hadin loo sameeyo inuu waqti qaato waanu kala hadlay madaxweynuhu arrimaha waana waxyaabaha intaan dhawaanahan aan rajeynayno inay hirgalaan ay socdaan waxa jira in madaxweynuhu arrinta ugu muhiimsan oo meesha ay tahay sidii uu helay heshiiskii Soomaaliland iyo DBO ay wada galeen maadaama adiguna ka qayb madaxweynuhu arrintaasi ma soo helay heshiiskii arrintu tagana waa arrintaas ma soo helay heshiiskii DBO iyo Soomaaliland arrintaas maxaa uga sheegay عبد الوهاب مدحوينها dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii uu kala hadlay Imaaraadka oo ku sheegay DBWL waa shirkad caalami ah tikada marsada caalamiga ee berbera bay gacanta ku haysaa ballaarinteedii way bilowday uu socdaa dhismihii qalabkii bay keentay waxaas qalabna may keenteen dhismana may bilowdeen haddii maanta heshiis la raadinayo heshiiskaasi uu dhamaaday golaha sharci dejinta ee baarlamaanka qaranku maray wuu ansaxay shaqo socoto weeyaan adiga iyo TV-gaagu taga berbero oo soo eega shaqo soo socoto واي 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 halkan waa VIPD waxa weeyaan xaruntii qaybtii loogu talagalay madaxweynaha qaranka iyo mas'uuliyiinta qaranka inay ka soo degto maamuus iyo hab maamuus gaar ah bay leedahay saxaafaduna maamuus gaar ah bay leedahay qolka leedii fadhiisiyay halka sawirka ka qaadanaysaan iyo sida aad wax u sawiranaysaan maamulka madaarka ayaa arinta inoo qaabilsan iyagana inoo asteeyay idinkuna inaad sawirka madaxweynaha shan diyaar baanu diinaa waa run madaxweynuhu markii horena martiqaad rasmi Imaaraadka ku tagay maantana mar labaad buu tagay waxay labadaniba muujinayaan oo ka turjumayaan cilaaqaadkii xiriirka fiican ee Imaaraadka iyo Soomaaliland ka dhaxaysa wuxuu kaga duwan yahay sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweynuhu safar ku tagay imikana 2019 baynu marayna labadiisa safar madaxweynaha sanad baa u dhaxeeya heshiisyadii iyo wixii laga wada hadlay hirgelintoodii wixii ka qabsoomay iyo wixii lagu kordhinayo iyo cilaaqaadkii labada dal inay sii xoogsamaan oo halka ka sii socdaan wixii qabsoomay in la soo kala qaato wixii hagaagana la isugu hambaleeyo ayay